ma ku fikirtay inaad youtuber noqoto laakiin marka aad go'aansatay ma garaweyda mawduucaad ku soo gudbiso youtube-kaaga mawduuc raadintu waa caqabadda ugu weyn ee ka hor taagan dhalinyarta inay bilaabaan youtube-ka maanta waxaan kuu haynaa 10 mawduuc oo youtube-kaaga ku soo gudbin karto adigoon wejigaaga muujin kaasoo haddaad dadaasho mustaqbalka aad kaga samayn karto dhaqaale aad u fiican waxaa kaloo muuqaalka dhexdiisa kuugu sheegi doonaa si aad youtube-kaaga uga dhigi lahayd mid guulaysta marka fadlan dhammaysa muuqaalkeena okay intaananu bilaabin fadlan subscribe noo saar waayo waxaan u dhowaanay hadafkeena oo ah inaan gaadhno 10,000 oo subscribe okay balan bilowno mawduuceena koobaad waa inaad ka hadasho qisooyinka mawduucan dadku aad bay u xiiseeyaan maadaama uu qofku sugayo dhammaadka qisada halkaasoo youtube-ku sii faafin doono marka uu dhammaysto qofka youtuberada ugu caansan ee soo gudbiya mawduucan waxaa ka mid ah dadweynaha channelkan waxa uu soo gudbiyaa qisooyinka iyo dhacdooyinka la yaabka leh laakiin isagoo wejigiisa face mask ayuu ku xidhaa oo wejigiisa lama arko laakiin adigu waxaad ka sheekayn kartaa qisooyinka adiga oo wejigaaga muujin waxa uu helay bishii ugu dambeysay 1 milyan oo views bishiina waxa uu ka sameeyaa qiyaas ahaan inta u dhaxaysa $390 ilaa iyo $6,200 sanadkiina waxa uu ka sameeyaa inta u dhaxaysa $4,700 ilaa iyo $75,000 channelkeena labaad waxa lagu magacaabaa macluumaad isaguna waxa uu soo gudbiyaa qisooyinka cabsida ah isaguna waxa uu helay bishii ugu dambeysay 222,000 oo views bishiina waxa uu ka sameeyaa inta u dhaxaysa $50 ilaa iyo $890 sanadkiina waxa uu ka sameeyaa inta u dhaxaysa $667 ilaa iyo $10,700 mawduuceena labaad ee kaga hadli karto channelkaaga waa inaad soo koobto ciyaaraha kubadda dhammaanteen dhalinyaro ayaa la wada yahay waxaana la wada xiisaynayaa daawashada ciyaaraha iyo falanqayntooda marka halkaa fursad ayaa kaaga bannaan oo ah inaad soo koobto ciyaaraha la ciyaaray oo youtube-kaaga soo dhigto laakiin hal caqabad ayaa jirta oo ah inaad garanayso luuqadaha qalaad ee lagu faafiyo wargeysyada ciyaaraha youtuberada ugu caansan ee ka hadla ciyaaraha waxaa ka mid ah maxamed khadar bishiina waxa uu ka sameeyaa qiyaas ahaan inta u dhaxaysa $1,900 ilaa iyo $33,200 sanadkiina waxa uu ka sameeyaa inta u dhaxaysa $22,700 ilaa iyo $362,600 mawduuceena saddexaad waa inaad ka hadasho maawilada carruurta maadaama oo la joogo wakhti carruurta lagu aamusiiyo moobilada halkaas oo loo geeyo waxyaabo ay ku madadaashadaan halkaana waxaa kaaga bannaan fursad oo ah inaad soo gudbiso waxyaabaha carruurta lagu madadaaliyo channelada ugu caansan ee soo gudbiya maawilada carruurta waxaa ka mid ah Somali Kids inkastoo youtube-ka ugu dambeysay 3 sano ka hor laakiin waxa uu heli jiray views waaliya bishiina waxa uu ka samayn jiray inta u dhaxaysa $107 ilaa iyo $1,700 sanadkiina waxa uu ka samayn jiray inta u dhaxaysa $1,300 ilaa iyo $20,500 laakiin hadduu sii joogtayn lahaa waxa uu ka samayn lahaa lacag intaa ka badan channelka labaad ee soo gudbiya maawilada carruurta waxaa lagu magacaabaa dhalaan koriye bishii ugu dambeysay waxa uu helay 180,000 oo views isaguna waxa uu bishii ka sameeyaa inta u dhaxaysa $47 ilaa iyo $754 sanadkiina waxa uu ka sameeyaa inta u dhaxaysa $566 ilaa iyo $9,100 mawduuca afraad ee kaga hadli karto youtube-kaaga waa inaad ka hadasho taariikhaha youtuberada ugu caansan ee soo gudbiya taariikhaha waxaa ka mid ah youtuberka loo yaqaano waa Beri Media bishii ugu dambeysay waxa uu helay 1 milyan oo views bishiina waxa uu ka sameeyaa inta u dhaxaysa $350 ilaa iyo $5,700 sanadkiina waxa uu ka sameeyaa inta u dhaxaysa $4,300 ilaa iyo $68,600 channelka labaad ee soo gudbiya taariikhaha waxaa loo yaqaanaa Ital Media waxa uu helay bishii ugu dambeysay 570,000 oo views bishiina waxa uu ka sameeyaa inta u dhaxaysa $143 ilaa iyo $2,300 sanadkiina waxa uu ka sameeyaa inta u dhaxaysa $1,700 ilaa iyo $27,400 mawduuceena shanaad kaga hadli karto youtube-kaaga wayna soo gudbiso wacdiga iyo maxaadarooyinka adigoo soo qaadanaya
maxaadirooyinka sheekhyada kadibna editing saaraya saana kusoo dhigaya channelkaaga. youtuberada ugu caansan waxaa ka mid ah channelka loo yaqaano eegmada. waxa uu helay bishii ugu dambeysay 490,000 oo views. bishiina waxa uu ka sameeyaa inta u dhaxaysa $123 ilaa $2,000. sanadkiina waxa uu ka sameeyaa inta u dhaxaysa $1,500 ilaa $23,000. channelka labaad ee soo gudbiya wacdiga iyo maxaadirooyinka waxaa loo yaqaanaa hadaf production. isaguna waxa uu soo qaataa muuqaalada culimada kadibna editing ayaa uu saaraa saana youtube-kiisa ayuu kusoo dhigaa. waxa uu helay bishii ugu dambeysay 534,000 oo views. bishiina waxa uu lacag ka sameeyaa inta u dhaxaysa $134 ilaa $2,100. sanadkiina waxa uu lacag ka sameeyaa inta u dhaxaysa $1,600 ilaa $25,600. mawduuceena lixaad eed kaga hadli karto youtube channelkaaga waa inaad leedahay xirfadda cunto karinta. haddaad leedahay xirfadda cunto karinta waxaad furan kartaa youtube channel halkaasaad kusoo gudbin karto xirfadaada rag iyo dumarba. channelada ugu caansan ee cunto karinta waxaa ka mid ah Cooking with Sucaad. waxay heshay bishii ugu dambeysay 75,000 oo views. waxay bishii ka samaysaa inta u dhaxaysa $19 ilaa $300. sanadkiina waxay ka samaysaa inta u dhaxaysa $226 ilaa $3,600. mawduuceena toddobaad eed kaga hadli karto youtube channelkaaga adigoon wejigaaga soo muujin waa inaad soo gudbiso xirfadda wax sawiritaanka ama farshaxanka. marka aan baadhay waxaan waayay youtuber Soomaaliyeed oo caan ah oo xirfaddan heer ka gaadhay, laakiin waxaa jira youtubero ajaanib ah oo xirfaddan heer fiican ka gaadhay. waxaana ka mid ah youtuberkan. waxa uu helay bishii ugu dambeysay 7 milyan oo views. bishiina waxa uu ka sameeyaa inta u dhaxaysa $1,900 ilaa $30,000. sanadkiina waxa uu ka sameeyaa inta u dhaxaysa $27,000 ilaa $370,000. mawduuceena sideedaad waa inaad ka hadasho sa naftaada horumar loo gaarsiiyo iyo inaad soo koobto buugaagta ka hadlaysa sa naftaada horumar loo gaarsiiyo. youtuberada ugu caansan ee soo gudbiya waxaa ka mid ah youtuberka caanka ee loo yaqaano Ogaansho. waana mid ku dayasho mudan waayo isagoon wejigiisa soo muujin ayaa waxa uu helay 1 milyan oo subscribe oo Soomaaliya. marka halkaa waxaan ka dhex fahmaynaa inaad guul ka soo hoyn karto youtube-ka adigoon wejigaaga soo muujin. bishii ugu dambeysay waxa uu helay 2 milyan oo views. bishiina waxa uu lacag ka sameeyaa inta u dhaxaysa $504 ilaa $8,100. sanadkiina waxa uu ka sameeyaa inta u dhaxaysa $6,100 ilaa $99,800. channelka labaad ee soo gudbiya horumarinta nafta iyo soo koobitaanka buugaagta waxaa loo yaqaanaa Xogoob. isaguna waxa uu helay bishii ugu dambeysay 31,000 oo views. bishiina waxa uu lacag ka sameeyaa inta u dhaxaysa $8 ilaa $125. sanadkiina waxa uu ka sameeyaa inta u dhaxaysa $94 ilaa $1,500. mawduuceena sagaalaad eed kaga hadli karto youtube-ka waa inaad ku soo gudbiso aqoontaada. haddaad leedahay xirfadaha sida graphic design-ka, video editing-ka, marka waxaad furan kartaa youtube channel adigoo kusoo bandhigaya xirfadaada. halkaana waxaad ka heli doontaa macaamiil aad u shaqayso saana waxaad kaga mid noqon doontaa dadyagoo guryahooga ku shaqaysta iyagoon meel u bixin. youtuberada soo gudbiya xirfadahooga waxaa ka mid ah youtuberka lagu magacaabo Samawade. waxa uu bishii ugu dambeysay helay 152,000 oo views. bishiina waxa uu ka shaqeeyay youtube-ka inta u dhaxaysa $30 ilaa $612. sanadkiina waxa uu ka sameeyay youtube-ka inta u dhaxaysa $459 ilaa $7,300. mawduuceena tobanaad waa inaad soo koobto filmada. mawduucan waa mawduuc aad loo xiiseeyo oo youtubero badan oo mawduucyo kale ka hadli jiray ayaa u bedeshay mawduucan soo koobitaanka filmada. waxaana ka mid ah youtuberada ugu caansan khulaasada filmada oo muddo yar gudahood ku gaadhay 1 milyan oo subscribe oo Soomaaliya. taasina waxay ku tusinaysaa awoodda uu leeyahay mawduucan. bishii ugu dambeysay waxa uu helay 6 milyan oo views. bishii waxa uu lacag ka sameeyaa inta u dhaxaysa $1,500 ilaa $24,700. sanadkiina waxa uu lacag ka sameeyaa inta u dhaxaysa $18,500 ilaa $296,500. si aad u bilowdo mawduucan waxa lagaga baahan yahay
inaad ogaato arrimaha soo socda, inaad taqaano habka la iskaga ilaaliyo copyright-ka iyo inaad garanayso meelaha lagala soo dego filmada iyo inaad taqaano habka script loogu diyaariyo filimkaas iyo inaad taqaano habka loo ridgareeyo. haddaad u baahan tihiin inaan ka soo sameeyo mowduucan muuqaal u gaar ah, fadlan gaarsiiya muuqaalkan 1500 oo like ah fiiro gaar ah. hadda waxaan soo sheegnay mowduucyada aad kaga hadli karto YouTube channel-kaaga. taas micnaheeda ma ahan marka aad doorato mowduuca aad xiisaynayso ee soo dhigto muuqaalka ugu horeeya inaad markiiba helayso views badan iyo subscribe. may wallahi saaxiib, si fudud laguma helo views iyo subscribe-ta. waa inaad YouTube-ka muddo dheer ku jirtaa, sabir iyo adkaysana la timaadaa, kadibna waxaad heli doontaa daawasho badan iyo subscribers badan. bal u fiirso YouTuberada caanka ee daawato muuqaalka ugu horeeyay waqtiga ay soo dhigeen iyo qaabka uu ahaa, waxaad arkaysaa inay muddo dheer ku soo jireen YouTube-ka ay soo tageen. marka waxaa lagaga baahan yahay inaad sabirto, joogtayso, marka ayaad gaari doontaa guushaada. intaan hadda kuu soo sheegay waa sirta uu ku guuleysanayo channel-kaagu. mowduuceenuna halkaas ayuu noogu xidhan yahay. waa saa iyo salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.